wacan oo wanaagsan daawadayaasha qaayaha iyo qadarinta iga mudan ee ku xiran YouTube channelkayga abwaan cabdirasaaq ka baxay waxaad ka heli doontaa channelkan waxyaabo badan oo ku xiisa geliya sida muuqaalada dhaqanka iyo hidaha baadiyaha iyo dhaqashada xoolaha iyo barnaamijyo khaas ah oo su'aala iyo qisooyin iyo sheekooyinba ay ka mid yihiin waxaa jiray baa liir hadda ka hor nin boqol ah oo gaal ahaa oo aad u kibirsan wuxuu dadka weydiiyey baa liir haddii 3 su'aalood liiga jawaabo waan islaamayaa wuxuu weydiiyey baa liir qadarku ma jiro ilaa hadduu jiro hal ii sheego siduu qadarka u jiro dadka un baa aaminsan ma ahane waad ku qaldantihiin oo qadarku ma jiro wuxuu yiri baa liir waxa la sheegaa shaydaanku inuu naar ka abuuran yahay ama diinta islaamku siday qabto ama diimo badan oo kale ay qabaan shaydaanku inuu la naari doono ama la cadaabi doono wuxuu yiri shaydaanku wuxuu ka abuuran yahay naar waxa kaliya ee lagu cadaabo wuxuna naartu waxay ka samaysan tahay dab siduu u gubayaa ayuu yiri baa liir wuxuu yiri baa liir gaalkii kibirsanaa fanaclatullaahi calayka Allah subhanahu wa ta'ala ma jiro ilaa hadduu jiro hala ii qiyaaso intuu dhan yahay Allah subhanahu wa ta'ala وسؤال قال كتمادة وحلا عضي باليره وحود دري وفود ذلك الدنيا دعلا ذا مال والبال الله دري قف كستوى علمي شيء جنا ينه والله كان جوابتي وحوسه اللوري إنه جرو ضد علمي له وإلهي سبحانه وتعالى أنا رميسا واحد عضي باليره جوابتي وحاسكوي ماذين ضد دي مكلا دوان كسعودة أي وهليانه ضد إسلامه وما شاء الله آد إيمانكود أسرعه واحد عظيم ليره مركي ديني كله مشركينتي يا جاردي كله بودستي يا هندوسكي يا كريستيانكي يا وحيابي كله هرلين وسؤالهاس وهذه جوابه أي علماء الإسلام كجار أشوريسي وإسويديسي نكن سيدنا وجوابنا قصدا oo ma leeyahay inay tahay qisad diini ah balse anigu aan hubin ayaa waxay u dhacday sidatan wiil yar oo aan loo maleysanaynin oo kamid ah dadka islaamka ee goobta ay fadhiyeen ayaa culimadii ku yiri baa leeyahay ana u jawaabaya sheekadu xilligeeda ma hayo dalkii ay ka dhacdana ma hayo waan raadiyay balse waan soo waayay fadlan hada qisadan ugu dhaanto comment ba hoos noogu dhaafaysa wiilkan yar ayaa wuxuu ku yiri baa leeyahay culimadii ninkan ana u jawaabaye waa nin kibriye aniga hal ii daayo culimadii oo ka iimaan baxsan wiilkan yaray inuu su'aalahaas jawaabahooda ku fududaado ay culimadii ka diideen kadib akaakan iyo muran iyo isqabqabsi badan kadib wiilka oo u ekaa nin aad u xigmad badan ay culimadii u ogolaadeen inuu masraxa fuulo boqorkan oo 600 oo ciidan ka badan ugu jiraan safaf aad u dhaadheer oo asagu u gaardinayaan ama u taagan yihiin oo aad u kibirsan ilaaladiisana aad u adag tahay ayuu codsaday wiilkii inuu soo fuulo maslaxa wuxuu ku yiri boqorka su'aasha ii weydiiyay maslaxa ha ii soo koro si uu su'aalahan jawaabtooda u helo dadkii baa is-eegay boqorku waa nin kibirsan ma kici karo mana loo ogolo inuu qof kale meel gacantiisa ka gaarto uu gaaro balse wiilkii oo ku adkaystay arrintii ayaa boqorkii wuxuu ka ogolaaday inuu meeshii soo koro ilaa wiilku wuxuu yiri haddaad rabto 3 su'aalood oo kala aha Allah ma jiro hadduu jiro hal ii qiyaaso qadarku ma jiro hadduu jiro siduu u jiro hal ii sheego iyo ibliis ama shaydaan waxa laga abuuray naar say u gubaysaa wiilkii ayaa waxa soo gaaray boqorkii wuxuu diyaarsaday gacantiisa midig wiilkan dhalinyarada ah oo kalkiisa aad u weynaa xoogna lahaa ayaa boqorkii darbaaxa labada indhood bartooda si xawli ah awood leh oo u fiirsaday ugu dhuftay boqorkii indhaha ayaa madoobaadeen labada jilib ayuuna goostay wuu wareeray ciidankii boqorka ayaa damcay inay wiilkii qabtaan ama jirdilaan balse wiilku wuxuu yiri boqor iga qaba ciidankaaga aan hadda su'aalaha jawaabtoodii fure boqorkii ayaa
si lama filaan ah ku ogolaaday oo ku yidhi daaya warbal haye su-aalaha nooga jawaab boqorow ha tegine halkan soo istaage waxaan ku weydiiyey marka aan ku lahaa soo kac ee halkan iigu mow inaan ku dharbaaxi doono miyaad ogeyd buu weydiiyey boqorkii ayaa ku jawaabay waa maya haddaan ogaan lahaa sharaf dhaca ima soo gaareen mana ogolaadeen inaan agtaada imaado wuxuu yidhi qadarku cid qiyaasi karta ma jirto taas qadar bay ku dhacday cid ogoon allah subxaanahu wa tacaala ka ahayna ma jirto qadarku wuxuu weydiiyey waxaad dareentay xanuunka aad dareentay bal iiga waran iigu cabiraad ilaa biyuhu waxaa cabiraa qiyaas dhulku waxaa lagu cabiraa kilomitar dhirirku waxaa lagu cabiraa fuud ama sentimitar bal maxaad ku cabiri lahayd buu ku yidhi su-aashii boqorkii meel u qaado eegaro ninkan ma waalan yahay sidaan xanuun u cabiraa buu yidhi ilaa xanuunku waa zaa'id ama waa yar yahay xanuun badan xanuun yar unbaa la odhan karaaye xanuunku maba la sheegi karo inta uu yahay wuxuu yidhi xanuunkaa waxaa abuuray allah subxaanahu wa tacaala adigoo garan la xanuun inaad qiyaasto sideen kugu qiyaasaa allihii ku abuurtay ama dunidan abuurtay wuxuu yidhi waxaan kugu dhuftay gacantayda oo ka abuuran hilib waxaan dharbaaxay jirkaaga oo ka abuuran hilib wuxuu yidhi xanuun baad dareentay xanuunka siduu hilib u gubay ayuu weydiiyey haddee ibliis ama shaydaan naar cadaabi karin siduu hilib u gubay boqorkii ayaa ashahaatay oo ku yidhi ninkaa waa iga guulaystay halkii ayuuna ku islaamay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waa wiil yar oo xigmad badan wuxuuna arkayey boqorkan inuu nin cilmiyaysan ahayn maxaa yeele nin cilmi leh su-aalaha noocaas lamama imaadeenba maybig maskaxdiisu mayba soo gasheen wuxuu ahaa wadda ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo marinaya xanuunka dad badan oo boqorkii caqiidadiisa haystane goobtii ayay ku islaameen qisadu xilligay dhacda ma hayo dadka qaar waxay sheegaan xilligii ambiyadii inay dhacdeen dadka qaar waxay sheegaan xilligii ilbaxnimada reer yurub ay dhacaysay ilbaxnimada reer yurub xilliyadii la soo gaaraya ee dadku bini'aadamku horumarka u horreeya gaarayeen ee daabadaha baabuurta iyo diyaaradaha ay bilaabanayeen ayay qisadu dhacday ayay leeyihiin waxay ahaydbo ha ahaatee xigmadda aanu ka qaadanayna ayaa waxay tahay su-aalaha mararka qaar ibliisku uu bini'aadanka qulubtiisa ku tufo oo ah kuwa mararka qaar u horseedo baadinimo iyo gef aan ka soo noqosho lahayn oo ku horseedi karo kufri iyo cadaab waa walaalkiin cabdirasaaq ibraahim xuseen ood ka daawanaysaan channelka abwaan cabdirasaaq ka baxay waxaad halkan kala socon doontaa sheekadan xiisada la mid ah oo fara badan fadlan subscribe saar sheegaree si aad ola socoto barnaamijyo kale oo xiiso leh mahadsanidin